halkan waxaa fadhiya culimadii gobolka Togdheer waxay dirayaan tacsi waxay dirayaan baaq ku aadan sida loo waajahayo arrinta dadka waxyeeloobay iyo mushkilada dhacday waxay dirayaan cambaarayn ku aadan cidii falka geysatay waxa insha Allah ta'ala culimada aan ku soo dhaweynayaa Sheekh Ali warsame Xasan ayaan ku soo dhaweynayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala shuhada uu ilaahay ka dhigo xaq daray ku dhinteene inuu ilaahay shuhada ka dhigo baan ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baryaa ahalidoodiina ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka siiyo sabir iyo iimaan isla markaana waxaan eedeynayaa ama aan habaarayaaba wixii falka geystay ayaan eedeynayaa falka waxishimada oo bilaadnimada ka baxsan oo dad maxaan idhaahdaa dad aan waxba galabsan lagu xasuuqay waxaan leedahay kuwa ilaahay mid ka daran ilaahay ku rido waxa dhacay wax ka daran ilaahay ku rido ummadana ilaahay wixii sida ka raali noqday ummadu inay sida u marato wixii ka raali noqdayna ilaahay subhanahu wa ta'ala musiiba ka daran taas ilaahay subhanahu wa ta'ala u baryayna ilaahu ku rido oo dadka uu ka qabto wixii ilaahay aanu toobad keenina ilaahay baa kala xisaabtamaya waxa ay sameeyeen marka inta haddii aan ku dhaafo waxa weeyaan kaarisadan waa kaariso aad iyo aad u weyn waxay ka mid tahay kuwii way ka daran tahay kuwii xooluhu markay baxeen kaarisadii dhacday ee la isugu soo gurmanayay marka waxaan leedahay dadka muslimiinta oo waliba aan uga horeysiinayo maxaan leedahay Somaliland aan uga horeysiinayo anigu aan dhex joogo inay dadka caawimo u geystaan oo dadka wixii ay ku tari karaan sidii waqtiyaashii hore dhibaatooyin kuba dhacay la isugu gurman jiray meel kastaba la isugu gurman jiray in hadeerna meeshii la joogaba in la isu gurmado oo dadka loo gurmado wax la taro taasna waxa weeyaan waa codsi aan soo jeedinayo iyo dadka kale muslimiinta ah meel ay joogaanba inay dadka u soo gurmadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkii wixii u soo gurmada dadka musiibadu ku dhacday ilaahay waxaan leedahay ilaahay khayr oo wanaagsan ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay hasiyo waa uun fadhi dareen ku aadan musiibada dhacday ee ka dhacday magaalada Muqdisho 14 bisha Oktoobar runtii waxaan isleeyahay way ka daran tahay wax la musiibo lagu tilmaamo xasuuq wax lagu tilmaamo way ka daran tahay musiibo wax lagu tilmaamo way ka daran tahay waa arrin aad iyo aad u naxdin badan marka arrintaas inaan la qaybsano dadka walaalaha ah waxaanay ku urursan tahay ugu horeyn tacsi aan u dareyno dhammaan dadkii ku geeriyooday iyo kuwa ku dhaawacmay iyo kuwa eheladoodii kula iyo kuwa maalkoodii uu ku burburay ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إلهي ممو قنا تبارك وتعالى ذاتك مسلمين تأه إلا حلاقيه أبرياده نفتودي يا مالكودي يا دينتودي يا دقنكودي يا عرضكودي يا عقلكودي انت بلغتو مانيو إلهي تبارك وتعالى ممو قنا كل سيدي شيخنا شيخ علي يا شيخ مصطفى أي كور همين iyo culimada kale isku wada dareen baan nahay gobolka iyo dhammaanba inta beledkan degan maasaadka halka ka dhacay inaan dareenkayga ka muujino oo muslimiinta maanta dhibaatooyin badan baa jira tani laakiin waa mid aad fajacti beer xanuujisay